ciidanka BSF ayaa wali wada qorshihii ahaa gargaarka iyo gurmadka shacabka ay waxyeeleysay abaartu waxayna gaareen deegaanka Hurdiya oo ku dhow degmada Xaafuun ee gobolka Bari. BSF ayaa safka hore uga jirta siday ula qaybsan lahayd waayaha adag shacabka deegaanada abaartu ay saameysay ku sugan waxaana la gaarsiiyay deegaankaasi raashin kala duwan oo ay ka faa'iideysteen dad badan oo baahi u qabay. xaaladda baan waa laga waa barwaaqaysna dad masaakiin meel iska joogaana ragna noo ma shaqeeyo khayr Allah siiyo khatarna Allah ka hayo ilaahay idin garab galo cadawgan Allah idin ka qabto hadda waa ka agoonnimo iyo qor hadda wiilashaysi waxaan joognaa Hurdiya baahi urus baa ka jira jilaal abaar biiraan raashin laan wali raashinka noogu dan bismillaahir rahmaanir aad baa loogu tabcantay maal SF baa noogu timi meesha oo noo keentay quudinta aad midee u lidata abaar baa ka taagan faqrigaas ka taagan ciidanka BSF iyo waan salaamaynaa salaanka bacdi gurmadkaana loo fidiyay waxay ku mahadsan yihiin mahad Ilaahay baa iska leh dad badan oo waxa jira iska tabaalaysan meeshuna hadda waa iska dadkaas waxay ka shaqaysan jireen badihina hadda way iska garanaysaano wax waliba ascaarti waxay noqotay qaali wax waliba way cirkay ku dhageen marka dadkii tabar ayay u waayeen marka aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyaga oo noo keenay 100 qoys oo raashina marka 100ka qoys waanu ka gudoonnay waxa mahad Ilaahay marka hore mahad Ilaahay iska leh Ilaahay weyna aha marka xilli waxaan u mahadnaqaynaa hay'adda BSF oo noo soo gurmatay oo abaarihii ka jawaabtay macnaha sida wanaagsan ee ugu keeneen 100 qoys raashinkood annana waanu ka gudoonnay waanu qaybsanay waxaanu kala uga sii baahanahay hadii Ilaahay idmo inay dadaal iyo wanaagaas aanu kala shaqeyn doono dhanka nabadgelyada dhanka ay macnaha dinooga baahdaan dhan walba anagu ammaan aan kala shaqeynaa walba haddana aanu kala shaqeyn doono waxaanu ka codsanaynaa in dadaalkaas ay sameeyeen noo soo sameeyeen iyo ka badan bay noo sameeyaan nala soo degaano xagga amniga nagala shaqeeyaan anagoo dhulka iyagu daamaan yahay laakiin aan jecelnahay in mataqaanaa inta ay ka sii badanba laga sii badiyo guddiga magaalada Hurdiya waa salaamayna anagoo ah ciidanka BSF waxaan u nimid amniga deegaanada gobolka Bari oo qaybta Xaafuun ay xukunto magaalada Hurdiya waxaan u keenay raashin 100 qoys maadaama aan soo gaarnay deegaanada tan abaarna wadanka ka jireen faramarnaan baan diidaynaa inaan ugu nimaadno waxaan u keenay raashinka 100 qoys waxaan ku wareejinay gudoomiyaha iyo guddiga magaalada Hurdiya ciidanka BSF waxaa dhab ka ah la dagaalanka xaq jirka iyo waxqabadka shacabka iyagoo wixii karaankooda u qoondeynaya BSF ayaa aaminsan inay muhiim tahay in si wada jir ah looga wada shaqeeyo amniga iyo horumarinta kaabayaasha kala duwan sidii looga gaashaanto abaaraha soo noqnoqonaya